si rasmi ah u sheegtay in difaaceeda cirka uu soo riday laba diyaaradood oo dagaal oo nuuca F-35 ah oo Israa'iil ay leedahay, kuwaas oo ku jiray hawada gudaha Iiraan. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in mid ka mid ah duuliyayaasha oo haweeney ahayd nolosha lagu qabtay kadib markii ay ka soo booday diyaaradda iyadoo adeegsanaysa baarashuut, sida ay sheegayaan wakaaladaha rasmiga ah ee wararka Iiraan sida Tasniim iyo Meher. Dhinaca Israa'iil iyo warbaahinta reer galbeedka, afhayeenka militariga Israa'iil Afiqai Adruci ayaa si degdeg ah u beeniyay warkan, wuxuuna barihiisa bulshada ku soo qoray sidan: sheekada ay Iiraan sheegatay ee ah in F-35 ay soo riday lana qabtay duuliye haweeney ah wax sal iyo raad ah ma lahan. Waa war been abuur ah oo ujeedkiisu yahay in lagu daboolo guuldarrooyinka Iiraan. Warbaahinta reer galbeedka sida wakaaladda wararka Reuters, BBC iyo Bloomberg ma aysan xaqiijin in Israa'iil laga soo riday laba ka mid ah diyaaradaheeda F-35. Ilaa hadda ma jiraan wax caddayn ah sida muuqaallo ama caddayn caalami ah oo taageeraya sheegashada Iiraan. Sheekadani ma noqon kartaa mid run ah? Sida ay qabaan qaar ka mid ah falanqeeyaasha, haa, waa suurtagal, laakiin maadaama aysan jirin wax caddayn ah sida sawirro burburka diyaaradda, muuqaalka duuliyaha la qabtay, ama bayaan rasmi ah oo madax bannaan, waxay weli u muuqataa sheeko dagaal warbaahineed oo labada dhinac ay u adeegsanayaan dagaal maskaxeed. Labada dhinac, waa Iiraan iyo Israa'iil, waxay leeyihiin dano gaar ah. Iiraan waxay rabtaa inay muujiso awooddeeda difaaca iyo in ay karti u leedahay inay soo riddo diyaaradaha casriga ah ee Maraykanku farsameeyay. Israa'iil waxay si adag u beeninaysaa si aysan sumcaddeeda u dhaawacin, gaar ahaan maadaama diyaaradda F-35 ay astaan u tahay farqiga tiknoolajiyadda iyo awoodda hawada. Dhinaca kale, warbaahinta rasmiga ah ee Iiraan sida IRIB iyo Tasniim ayaa ku dhawaaqday in Tehraan ay beegsatay xarunta nukliyeerka Israa'iil ee Daymuna, oo sidoo kale loo yaqaano xarunta cilmi-baarista nukliyeerka ee Naqab, kuna taal meel u dhow saxaraha Naqab. Wasiirka sirdoonka ee Iiraan ayaa xaqiijiyay in uu hayo xogo dahabi ah oo ku saabsan goobta ay ku taalo xaruntan. Wuxuu sheegay in xogtaas la shaacin doono waqti dambe.